waxa uu muran ka dhashay shirka maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo haatan ka soconaya magaalada Muqdisho kadib markii maamul goboleedyadu ay soo jeediyeen inuusan gudoomiyaha gobolka Banaadir uusan la mid ahayn madaxda maamul goboleedyada dadka loo baahan yahay inuu ka baxo shirka ka soconaya gudaha magaalada Muqdisho madaxda soo jeediyay dalabkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale madaxweynaha galmudug kuwaas oo ka codsaday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay shirka ka saarto gudoomiyaha gobolka Banaadir Masar Taabit Cabdi markii arrinkaasi uu soo baxay kadib ayaa waxaa ka jawaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabit kaasoo sheegay in gobolka Banaadir uu taagan yahay maqaamka maamul goboleedyada oo kale isla markaana ay ku tiirsan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan maamul goboleedyada qarashka ku baxa kaasoo laga helo gobolka Banaadir Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa dhankiisa si kulul uga jawaabay arrinkaasi ay soo jeediyeen maamul goboleedyada waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu yahay mas'uul aan mudnayn in shirkaasi laga saaro maadaama ammaanka gobolka Banaadir uu yahay wax xilligan laga doodayo waxa uu bogaadiyay horumarka uu sameeyay maamulka gobolka Banaadir oo ku tilmaamay inaysan gaarin maamuladii kale ee ku horeeyay isagoo sida oo kale Ra'iisul Wasaaraha tilmaamay in aan loo baahnayn in xilligan shirka laga saaro gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa hogaamiyaasha maamulada kala duwan ee shirka fadhiya waxa uu weydiiyay haddii ay jiraan cid aan ahayn beeraha u dhashay deegaanada ay ka soo jeedaan isla markaana xilligan madax ka ah